السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ظهر وناكسن دمان كسوق بقرياشة شركة workshop كان لماذا مع الموت كسعودي أي قابسي وسعر تمرتي خيرات بيها وأي كسوق بقلين مع الجوالات قاركود iyo wasaaradda shaqaalaheeda runtii wuxuu ahaa tababar aad iyo aad muhiim u ah tababarkaas wuxuu ku saabsanaa sida loo maareeyo mashaariicda oo loo qabto balaankooda iyo qorshahooda loo sameeyo iyo marka balaanka la sameeyo sidii loo fulin lahaa iyo sidii dabagalkooda marka loo sameyn lahaa marka project cycle management wareegaas marka mashaariicda marna aad qorshaysid marna aad hawl gelisid operationkii aad fulisid marna inaad muxuu ahay joogtayntii maareynteeda iyo qiimeynteeda aad muxuu ahay aad daba gashid ayuu ku saabsanaa oo salkiisu ahaa runtii labada maalmoodna barnaamijkaas si fiican oo midho dhala ayaa muxuu ahay u baxay waana wadaynaa waxaa dardaarankuna wuxuu yahay in shaqaaluhu ayan meesha kaga hadhin oo barnaamijkii isaga ahaa muxuu ahaay runtii la sii wado lagaga faa'iideysto waad ogtihiin oo aad iyo aad bay wasaaraddu shaqada ay hayso waxyaalaha ay muxuu ahaay u baahan tahay waxaa weeye in mashaariicda ay muxuu ahaay qorshaysato inay fuliso inay muxuu ahaay joogtaynteedana ay muxuu ahaay marka ay daba gasho marka muhiimad weyn buu inoo leeyahay halkaa ha laga sii wado yaan lagaga hadhin marka dardaarankeenu waxaa weeye qoladan TV-ga qaranka ee Soomaaliga runtii aad baan idinku mahad celinaynaa shaqaalaha walaashay iyo gabdhaha daadihinaya mashruuca ee labada gabdhood runtii aad iyo aad baan iyagana ugu mahad celinaynaa gabdhaha waynu doorkooda hoos baad moodaa inaynu u yar muxuu ahaay Soomaali haddaynu nahay aynu muxuu ahaay aynan muujin iyaga ismuujiyay markay ismuujiyaanna oo ay soo baxaanna runtii in aan gacan qabanno oo aynu muxuu ahaay ku dhiirigelinno hawlaha ay qabanayaan dalkeena dib u dhiskiisa iyo hawlihiisana muhiim bay ka yihiin marka waxaan jeclaan lahaa in sidaas maartay meesha runtii aan hoos loo eegine kor loo eego oo la tixgeliyo mujtamaceedna waxay ka yihiin de qaybta muhiimka ugu weyn tirada shaqaalaha ee shirka soo qayb galay runtii waa 39 qof oo isugu jira dad ka yimid muxuu ahaay maamul goboleedyada qaarkood iyo wasaaradda dadkii loo arkay marka muhiimadda in mashruucu ay u leeyihiin oo muxuu ahaay runtii iyaguna aad iyo aad bay muxuu ahaay u ahaayeen dad uga qayb qaadanaya mashruuca uga faa'iideystay waxaan jecel lahay kuwa kale badanna saasa insha Allah u qaban doona mashruucuna in uu ku socdo sidaas inaguna aynu muxuu ahaay aynu sidaa u sii wadno oo aynu adkayno aynu u baahannahay hadaynu ka wasaaradnahay ano markaa ku soo hadlaya magaca wasaaradda tamartii khayraadka biyaha waxaan jeclaan lahaa shirkeeni labada maalmood ahaa in aan halkaa ku soo xidhno wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم maanta waxaa sharaf noo ah inaan gabagabayno seminaarkii baryahan ba u socday shaqaalaha wasaaradda tamarta iyo biyaha khayraadka biyaha iyo qayb ka mid ah maamul goboleedyada oo halkan ku sugnaa seminaarkaas ku saabsanaa sida mashaariicda loo maamulo min bilow ilaa dhammaad ayay baranayeen waxay kaloo baranayeen sida loo sameeyo qorshaha mashaariicda ayay baranayeen runtii aad iyo aad ayaan uga mahad celinaynaa macallimiintii bixinayay barnaamijkaas iyo dhammaanba mas-uuliyiintii ka soo qayb gashay waxayna runtii ka caawinaysaa shaqaalaha inay bartaan habka loo xushmeeyo goobta shaqada iyo xafiisyada kaas oo runtii hadda ka hor aan seminar noocaana aan loo qabanin shaqaalaha iyo mas-uuliyiinta xafiisyada hoose tan waxay nagu baraarujinaysaa in ay qofka shaqaalaha fahmo ixtiraamka iyo karaamada uu leeyahay qofka shaqaalaha oo ka hooseeya sidii uu u xushmay lahaa waxaa ka mid ah casharadii la baxshay sidii qofka lagu xushmay lahaa shaqadiisa sida qofka lagu soo dhaweey lahaa maxaan ku raadaa gacmo furan sida uusan shaqadiisa isku buuq ula kulmin waxyaalahaas ah
xagga maskaxda sida stresska looga bixiyo shaqaalaha si shaqaaluhu shaqadooda ugu farxaan si waqtiyada ay joogaan ugu farxaan si dhexdooda u kala faa'iideystaan oo u kala qaataan yacni casharada dejinta la yiraahdo ay u kala qaataan oo ayagu dhexdooda isu jeclaadaan markay bannaanka joogaan iyo markay gudaha joogaan taas ayaanu intii halka ku gabagabaynay waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa telefishinka qaranka iyo wariyaashiisa oo nala joogay saddexdii maalmood labadii maalmood la soo dhaafay si hawlkarnimo noola shaqeeyay bismillaah waxaan ka soo qayb galnay seminar oo loo bari socday oo ahaa yani ciwaankiisa project cycle management iyo stress project cycle management oo noo soo kala soo jeediyay gabdhaheena qaaliga ah macallimiinteena sharafta badan Saudi Daahir Diiriye iyo Iqlaas Sheekh Umar aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin wax badan ayaan ka faa'iideysanay sida project loo sameeyo iyo wax badan ayaan ka faa'iideysanay aad iyo aad ay u mahadsan yihiin loo bari waa seminaarka noo socday wax badan aan ka faa'iiday sida project loo maamulo sida projectiga adiga heshay waxyaabo khilaafaad hadoo soo dhaxgalo sida u manage gareyn lahayd project quality leh saa u sameeysan lahayd aan ku baranay bismillahir rahmanir rahiim alxamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khayril anami wal mursalin dhammaan salaamaya dadka ka soo qayb galay session kan runtii waxaan kamid ahaa dadka ka qayb qaatay session kan ku saabsanaa project cycle management aniga magacayga waxa la yiraahdaa Faarax Cabdirasaaq Umar waxaan kamid ahaa dadka labada bariyo barnaamijkan socday ka faa'iideystay runtii faa'iido aad u muhiim ah oo la xiriirta shaqada daily-ga maalin walba la qabto la xiriirta qofka suu personalkiisa ama asaga shaqadiisa u manage gareyn lahaa hawlihiisa caadiga ah oo la xiriirto stresska marka qofku jiro programka oo hayo wixii culays kaga yimaado soo xalin lahaa wax walba ku saabsan markii mashruuc la fulinayo qaababka uu maro oo processka uu maro iyo meelaha laga bilaabo sida loo qorsheeyo sida loo report gareeyo sida documentiga sida loo sameeyo dhammaan wixii la xiriira project management ama cycle-da uu maro projectiga ayaan ku qaadanay aad baan uga faa'iidnay waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa cidii soo qaban qaabisay oo wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha soo jeediyaashii barnaamijka soo jeediyay macallimiintii runtii faa'iido dhaxalgal ah oo muhiim ah oo mustaqbalkaas leeyahay shaqadeena ayay faa'iido u tahay dambe ama dhaxal u tahay aan is leeyahay nafsiyan annaga markaan shaqaalanahay ama managers aan nahay ayay faa'iido wax noogu jirta ah sidaan shaqaalaheena iyo mashruuceena iyo shaqadeena iskugu wadi lahayn sida stresska iyo culayska naga soo gaara ama cadaadiska nooga imaada shaqada aan u xalin lahayn wax walba oo la xiriira markii project la fulinayo sida loo manage gareeyo ayaan ku baranay aad baan ugu mahadcelinayaa cidda barnaamijka soo qaban qaabisay iyo cidda ka qayb qaadatay iyo dhammaan dadkii hawshan ku lug lahaa